ta khayraadka ah dalku waa federaal wixii heshiis caalami ah iyada oo lagala tashanayo dowlad goboleedka Puntland waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno dowladda federaalka waxaan u aqoonsanahay inay tahay dowladdii federaalka ee Soomaaliyeed maaha in madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf madaxweyne kasta oo Soomaaliyeed oo xilka ka bedela isaga Puntland waxay diyaar u tahay in la shaqeyso waxay diyaar u tahay inay kala xaajooto wax kasta oo dastuuri ah wax walba waxay ku dhamaanayaan dastuurka waxa uu ka qabo aad u qani markaan ka hadlayno waxyaabaha khayraadka ah dowladda federaalka meel gaarka ah Soomaaliya waxaa jira waxyaabo badan ay iskugu dhaceen Puntland ismaamul goboleedka Puntland markii laga fiiriyo xagga khayraadka tusaale ahaan haddaan u soo qaadano ama petrolka ku jira ama waxyaabaha dabiiciga ku jira Puntland in ay tahay inay hoos tagto dowladda federaalka meel gaarka qaarkood baarlamaankii federaalka ama baarlamaankii aan raahday ismaamul goboleedka Puntland waxa uu go'aamiyay in arinta laga fiirsado marka maxaad ka dhihi lahayd arinta waa arrin dastuuriya waxay ku habboon tahay in guddi dastuuriya loo saaro oo technicalitygeeda la fiiriyo laakiin waxaan aaminsanahay haddaan isfiirsi shakhsiga jirin which aan aaminsanahay in cali maxamed geedi iyo cadda muuse u dhex maray in la xallin karo khayraadka Puntland ka soo baxa Soomaaliya oo dhan baa leh u malayn mayo qof Soomaaliya oo raba inuu ka shaqeysto wax ka qabsado in wax ka hortaagi kara aanay jirin de federaalkuna portion kamid ah wixii dalka ka soo baxa buu maamulaya laakiin waxaan aaminsanahay xiriirada caalamiga ah iyadoo laga tashanayo Puntland in wax laga qaban karo cabdiqani waxaa jirta in sidoo kale dagaal la sokeeya inay ka jiraan gobolada mudug haddii lagu doorto haddaan tusaalahan usoo qaadano gobolada markaan leenahay gobolada mudug waa magaalada gaalkacyo kale waxaa jirta jaaliyado kale inay degan yihiin oo isla Soomaali ah dad xiriir la leh gobolada Puntland iyo kuwa aan la lahayn markii lagu doorto maxay tahay waxyaabaha aad marka dadka Soomaalida ah aad ku soo jiidan lahayd ama aad ku dhalin lahayd nabadda sidii lagu gaari lahaa waxaan ku soo jiidi lahaa ama aan u bandhigi lahaa nabad oo ah waxa aan la heli karin ma aha kaliya marka kuwa ku nool mudug iyo Puntland waxaan tegayaa meel kasta oo dad Soomaaliyeed ay isku hayaan oo ay diyaar u yihiin inay wada hadlaan oo nabad laga gaaro nabadda waxaa la yiri wiil baa ku dhashay wiil kuma dhinto waa soo aragnay reer hebel baan qabsanaynaa iyo annaga u talinayna xanuunka ay leedahay iyo dhibka ay leedahay aan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay dhawaan ka gudbi doonaan taas laakiin waxaan diyaar u ahay meel kasta oo dad Soomaaliyeed nabadood laga hadlay inaan ka qayb galo inaan fikirkeyga ku darsado inaan nafteyda u huro inaan haddii dhaqaale iga baahda ku kabo waxaan rajaynayaa in ilaahay dabeel caafimaad noo keeno oo ummadda Soomaaliyeed ay is-afgarad iyo wax wada qabsi ay galaan oon soo ceshano qarinimadeenadii iyo dowladnimadii aan lahayn waxaan aad u dhageystaa hees marin mursal iyo jooqla ay qaadaan oo haddaan dibadii ku jooga la yidhaahdo waxaan fadhiyaa dadka Soomaaliyeed inay taabatay waan laabanaynaa dhul baan leenahay dal baan leenahay ilaahay nabad ha nooga dhigo cabdiqani haddaan ku weydiiyey xiriirka dibadda xiriirka idinka dhexeeya haddii lagu doorto muxuu noqon doonaa xiriirka idinka dhexayn doonaa idinka iyo mataqaanaa wadamada Mareykanka iyo sidoo kale qaybaha Yurub wadankan ku noolnahay Mareykanka sidoo kale waxa uu inta badan caawiyaa dalka Soomaaliya waxaana uu yiri waxaan maaragtay ka caawin doonaa xagga ammaanka nabadgelyada iyo waxbarashada sidoo kale waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya iyo ismaamul goboleedyada ka codsaday in sidii loola dagaalami lahaa kooxaha xag jira sida uu sheegay ee ka jira wadanka Soomaaliya markaan leeyahay kooxaha xag jira waxaa kamid ah dadka qalalaasaha ka wada Soomaaliya iyo sidoo kale maraakiibta lagu afduubto gobolada waqooyi iyo sidoo kale ee Soomaaliya marka haddii lagu doorto muxuu noqon doonaa xiriirka idinka dhexeeya adinka iyo international community-ga wallahi cid kasta oo nacaawinaysa midabkay rabta ha lahaato diintay rabta ha lahaato waa soo dhaweynaynaa nabad in nagala shaqeeyo diyaar baan u nahay Puntland waxay leedahay wasaarad iskaashi caalami ma laha wasaarad arrimaha dibadda ah wixii arrimaha dibadda ah waxaan u malaynayaa jurisdictionkeeda waxaa dowladda federaalka ah laakiin wixii iskaashi ah dowladda Puntland cid walba oo iskaashi la sameynaysa waa soo dhaweynaysaa dabeedna waxaa ratify gareyn doona baarlamaankeeda kadibna baarlamaanka federaalka waxyaabihii la isku qabtana kulli waxaan aaminsanahay in laga wada xaajoon karo in si dastuuriya loo xallin karo cabdiqani haddaan ku weydiiyo dadka ku la-anaya badaha xeebaha waqooyi bari Soomaaliya ismaamul goboleedka Puntland waxaa jira ilmaha intii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday in dad Soomaaliyeed ay badda ku la-anayaan
tira ahaan sanadkan sida la qiimeeyey ama dadka soomaalida ee ku lacday badda waxaa kor ay u dhaafayaan 5,000 oo Soomaali ah. dadkaas Soomaalida ah ee ku lacanaya badda ee ka baxa Puntland haddii lagu doorto maxay tahay waxyaabaha aad ka qaban doonto? waxay ku noqdo boqolka bari u horeeya waa aniga ku yiri shuruucdii baan soo dejinaynaa lagu dhaqi lahaa waxaan masalan marka dadka tahriibiyaashu ay deyntu raacayaan kama raacaan magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka waaweyn ee waxay ka raacaan meelo ay ku ballameen iyaga iyo nimanka doonta leh shuruucda aan soo rogayno oo haddii la doorto inaan dhaqan geliyo aan isku dayo waxaa ka mid in doontii lagu helo in ay dad tahriiba qaaday xataa iyadoo ay saareen in lala wareego in ciqaab xabsi ah ay timaado waxaan ku rahay haddii dad ku dhintay oo halkaa dhimasha ay jidhay in dadkii ka mas-uulka ahaa ay qaadaan mas-uuliyaddeeda waa xanuun miiran waana dhibaysaa qof Soomaaliya in uu si macna daraa u dhinto dadkana waxaan kula talinaynaa wardoonyahan yaryarka oo lacagta la idinka qaadanayo oo qaarkood sida cadarkahan ii sheegaysay inta Boosaaso laga qaaday Boosaaso lagu soo celiyo lacagta lagaga qaatay in ay iyaguna ka waantoobaan oo ay joojiyaan laakiin roorka ay ku sii roorayaan cabdiqani dadkii waa indho adag yihiin waxay rabaan inay ka cararaan wadankii qaar baa marka lacagtooda iyo naftooda ku biimeynaya marka dadkaasi Soomaalida ah ee markii la weydiiyey maamulka waqooyi bari ama ismaamul goboleedka Puntland magaalada Boosaaso mayorkeedii markii la weydiiyey iyo booliiskiiba labadaba waxay yiraahdeen uma taaghayno dadka meelaha ay laga heli karana waxay u badan yihiin waa doomo sidaa sheegtay la soo ijaarta ama doomo marka dadku calooshiis u shaqaystayaal ay leeyihiin marka kuwa calooshiis u shaqaystayaasha aan qabiilka lahayn oo aan meelna hoos tagin maxay tahay marka sida tiri waxa tiri booliiska wuu qaban karaa laakiin dadkii waan la soo qaban karin oo maaragtay dhibaato ka taagan meeshii waa kuma raacsanay mayorka Boosaaso iyo mas'uuliyiintii u hadlay Puntland inaan wax laga qaban karin waxa waa laga qaban karaa laakiin waa in la isu kaashadaa dadka iyo dawladda waa in dadka raacaya iyaga ruuxoodu ay dib u fikiraan waxa tiri waxa laga cararaya Soomaaliya dadka cararaysa ila dhimasho u cararta maaha waa aragnay dooniyihii in maalin lagu dhimanayo dadku marka inay iyaga ruuxoodu dib u fikiraan laakiin dawladda iskala mas'uuliyadda waana sahlan tahay waxaan ku yiri haddii rule of law la sameeyo sharciga wax laga kala dambeyn haddii la sameeyo doontii qaada qof tahriiba waa la wareegaynaa taas waa caddahay gartay marka waxaan jecelnahay inaan soo gabagabayn doono barnaamijkeena inta aanan ka bixin barnaamijka waxaan jeclahay inaad dadka maaragtay u soo jeediso wixii salaana iyo mataqaanaa haddaad dad salaamaysid ama iyo sidoo kale wixii conclusion cabdiqani waa fursad qaali waan mahadsantahay adiga iyo injineer xasan iyo galbeeti fursadda aad ii siiseen maanta inaan halkan platformkayga kusoo gudbiyo la hadlamayo only dadka reer Puntland waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay walaalayaal 17 sano oo rafaad iyo qax iyo dhibaato hadda ku soo maray waxay xaq u leeyihiin caruuraha iyo maatada iyo bermigeyadu in la dejiyo 17 sano kadib inay helaan dawlad inay helaan nabad inay helaan caafimaad inay helaan waxbarasho waa xanuun miiran ilmihii ku dhashay dagaalka sokeeye oo aan helin fursad wax ku bartay waxay ka go'an tahay qaranka Soomaaliyeed ma ahan qabiil caafimaad darrada daawooyinka dhacay oo dadka lagu duray waxay ka go'an tahay qaranka Soomaaliyeed raashinka dhacay oo dadka la siinayo waxay ka go'an tahay qaranka Soomaaliyeed war bal inta marti u fariisataan bal qarannimadii xasuusta ummadda Soomaaliyeed in laga badbaadiyo dhibaatada maanta ay ku jirto waana lagu xisaabtamayaa aakhira waa la isweydiinayaa adduunkana waa dhib jira waxaan ilaahay ka baryayaa in sanadkiisa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba ay ku gaaraan nabad iyo baraare colaaduhuna ay dhammaadaan lana iscafiyo oo gacanta la isqabsado oo wixii dhacay xala dheer laga noqdo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh kaasi wuxuu ahaa cabdiqani shancad maamulka Puntland ayuu isku soo sharaxay inuu noqdo madaxweynihiisa waraysi ayaanu ka qaadanay dhinacyo badan taabanaya waqtiga dambe ayuu noqon doonaa waraysi gaara ayaan ka qaadi doonaa isagoo markaasi Maarso 8 magaalada Minneapolis uu ku qaban doono 7 Maarso ayuu wuxuu ku qaban doonaa shirweyne aad u weyn uu ku soo bandhigayo fikradiisa siyaasadeed uu ku doonayo inuu madaxweyne ku noqdo Puntland cabdiqani aad baad mahadsantahay. Good job. Are you sure?